هذا حرفضاً لهين ما حد ولا والله دان دكتور أهان لهين ما أقانو حنقول لها آيس كريم إنا قد لها أمرينا وعلي هذا دتك إذا فرحت جلس أنا بسيد آيس كريم قد مركو أمرينا آيس كريم قد لها dadka sidee ku arkaan waxaa la yidhi qof walba caqligiisa wax ku arkaa yacni dadka bulshada aragtida ay qofka dhakhtarka ka haystaan adduunweynaha iyo Soomaaliya way kala duwan tahay adduunweynaha qofka dhakhtarka waxaa loo haystaa inuu yahay malaa'ikatu raxma laakiin Soomaaliya markuu joogo waxaa loo haystaa bisaraaxa kawaanle marka shaarcad dheerna uu wataa kiiti majarayaasha iyo kawaanlayaasha asaga inuu kawaanle yahay loo haystaa dhakhtarka mar qof markuu ku arkaayo adigana waxa uu aragtaa EVC ku soo galay inuu yahay asna wuxuu ku arkaa inaad tahay kawaanle markii runta u hadalno laakiin yacni dadka aragtida way kala duwan tahay adiga waxa uu aragtaa qof bukaan inuu yahay naxariis u baahan gargaar in loo fidiyo u baahan oo inta tabartaada u dadaalaysid asagana wuxuu ku arkaa qof asaga caawinayo garab siinayo oo wanaag iyo naxariis uu kala kulmaayo qof kale waxa ku soo galay ku arkaa inaad tahay adiga isbaaradii oo reer hebel inuu ku soo dhaxdhacay 2 3 action maxaa ku dooran inta fiiray tafara maxaa ku dooratay xirfadan xirfadda caafimaadka ama dhakhtarnimada waxaan ku doortay waxay ahayd yacni marka hore jacayl aan qabo waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiican iyo mithaaliyaad iyo yacni qofka inuu yahay takhasus prestige inuu yahay mediciinka nafsad bin aadan inaad badbaadinaysid in yacni afkaartii markaan yareen waa xasuusatiin superman inaad tahay waxyaabo badan aan kugu soo dhacayo marka badbaadinta nafsadda bini aadanka iyo waxa isweydiin jiray jirkaan gudihiisa maxaa ku jiro markaan yareen waxaa xasuusta qof walba hooyada waxay ku dhahay inta maxaa ku jiro inta maxaa ku jiro inta maxaa ku jiro marka su'aal ay u dhalatay inta maxaa ku jiro taasaa waxay keentay marka inaan daba galo dhakhtarnimadii iyo barashadeeda caqabadaha shaqada lagala kulmo waa caqabado fara badan waaye yacni waxay isugu jiraan kuwo farxad leh oo qosol leh oo comedic ah iyo kuwo aad saad u ah oo murug keenayo marka aniga ka tabci ahaan waxaan jeclaa kuwa farxadda leh qosol kale inaan soo hormariyo sheego waxa igu caqabad badnaa yacni igu qosolka badnaa waxay ahayd qof bukaan oon u adeegnay maalin dhan loo shaqaynayay yacni Soomaalideena check up sameynaa qofku imaanaa oo isbaaraa yacni noloshiisa ka taxadaraa ama geedka xaafadda ku yaala waxaa lagu soo sheegay inuu cudur hebelow uu soo dego waqti hebelow marka way imaanay waxay leedahay cudur hebelow iga baar doctor hebelow marka cudurkii laga baaray waa la baaray waxay ku leedahay mid kale maamadu waxay tiri yacni up to down ama daba i dacal la ii baaro marka dhakhtarkiina wuu qabtay garka u galiyay marka wuu baaray adil lacag $200 camal lagu baaray by the end of the day waxa la yiri ma sha Allah cuduradii ama saaka u timid oo dhan waa laga waayay maamada dagaal ay gashay waxay tiri $200 ay qaaday si cudur iiga weys har aadi ayaa muslimiin oo cudur inaan ay gaditid ma noo imaatay bas inay is ogaatid oo imaatay wiilaa soo waday banaanka u soo bixi wuxuu yiri maama raali ahaa wiilkii ku sii kacday iskii faat aan intay maamadaada ku noqday kaaga bidaarta weyn anay say maama ugu noqon karaa anay dhawaalo qosay meeshii waxay noqotay meel oo yacni ayada nafirkeeda qosashay maamada markii dambe ugu dambeynna farxad ay ku dhamaatay waa la xaliyay ayadoo cudur la'aan ay baxday mid kale ku dar caqabad kale waxaa ka mid ah caqabooyinka tan bardo ayadana mid kale waxaan ka dhiganaa comedic waaye yacni caqabadaha farxad waagii covid-ku ahaa marka dadka dhan waxaa la dhahay yacni u jirso walaalkaaga 1 mitir ama 2 mitir yacni ha isa salaamina sankaaga iyo gacmahaaga afka kala ilaali marka waxyaabo nasaaix irshaadaad badan la bixinayo oo ku saabsan covid-ka marka dadka qaar wuxuu la galay marka waswaas qahri yacni waxyaalo dhibaayo oo qasab ku ah waswaas oo sheekada la gashay marka salaad xirashadii timid iyo in salaadii sidii loo safan lahaa marka in 2 mitir la soo jirsanayo imaamka inta laga fogaanayo waxaas la gashay marka weysada barkeedu ka tagay marka wuxuu yiri wuxuu ka bilaabay weysadii labada gacmood dhaqay iyo labada lugood masaajid markuu yimid inuu tukado wajigiisa waa qalalayahay marka maxaa dhacay sheekh Hawsaan wajiga waa qalay weysadii ma dhameystirnay yaa la taabanay mal dheeno yiri wajiga iyo sanka marka waa gabagabaystay yiri intaan waa soo dhaqay marka waxa aragnay meesha inuu jiro yacni jaahilnimo diineed iyo jaahilnimo caafimadeed ma ixtiraam shadiid mujtamaca oo u baahan wacyigelin marka taasna waxay markay mowqifkaas la joogo marka aad u qoslay yacni sawiro qof intaan ka qalalan oo inta kale ka weysa qabo
shaah waxaa maqli jirnay kor cadeyska ah hoosna macnaha oo baalkii ka ah marka nin saasuu nagu noqday aad yani xataa imaamkii saameysay salaada naga bixinayay waxayna dhacday covidka xilligiisii. waa maxay sirta ugu weyn ee aad ka baratay xirfadda? Okay, sirta ugu weyn xirfadda muhiim waaye. sirta ugu weyn xirfadda basiray leedahay. yani sirta ugu weyn waxaa waaye inaad naxariis leedahay aad dareemi kartid qofka kuu imaanayo yani sida ugu soo tabaabushiisanaya sida ugu soo talagalay shalay oo dhan oo kuu sugaayay oo dhahay xalay oo dhan ilaahu mar i horgeed dhakhtar hebel si aan ula kulmo. marka yani filashadii uu kaa filayay inaad ka hoos martid ma aha qofka, waa inaa cala alaqal a ku imaatid filashadii uu kaa filayay inuu naxariis iyo gargaar kaa heli doono. haddii aad marka filashadaas ka hoos martid mihaniyan waa fashilmaysaa. maxaa yeele akhlaaqiyad tabiibka waxaa laga rabaa qofka dhakhtarka ah in uu ilaaliyo yani asraarta bukaankiisa iyo tacaamulka bukaanka la tacaamulaya inuu wanaajiyo. mar walbana uu ahaa taytalkaaga waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican. haddaan xirfadan lahayn maxaa dooran lahayd? wallahi haddaan dhakhtar ahaan lahayn ma aqaan waxaa noqon lahaa ice cream inaan gadi lahaa umaleyna. waxaa la yidhi haddaa dadkan inaad farxad gelisid aan sida ice cream gad, marka waxaan umaleyna inaan ice cream gadi lahaa. xirfadan riyadaada mid ku gaarsiisay ma tahay? riyadeyda yani weli ma gaarin. maxaa yeelay riyada waxaa waaye yani in bini aadanka uu noqdo mid yani khaali min alamraad. adduunyadan ma dhaceysa inuu qofka noqdo khaali min alamraad. yani nolosha waxaa daar ibtilaa waaye, waa loogu talagalay inay dadka xanuunsanaadaan ayna raystaan. ilaaha mudabir ah. marka riyadeedii aan waxay kusoo beegmatay marka meel aan waxba aan suurogelayn. marka riyada laakiin aan gaaraa waxay tahay inaan kasbaday quluub badan oo bukaano badan ay leeyihiin, dad badan oo muslimiin aan u gargaaray. adcaf aliimaan intaa awooday inaan qaban karay aan qabtay, welina aan diyaar u ahay inaan qabto wax allaale waxay igu soo aado. waa caaliyan idaa qaamat saaca wa fii yadi axadikum fasiila, hadduu awoodi karo inuu qarsi ku sameeyo ha beero. marka diyaarna weli waa u ahay, quluubtaas aan kasbadayna aadaa ugu faraxsanahay. laakiin riyadeena ma aha mid la gaarayo. macluumad qaldan ee dadka ka aaminsan yihiin xirfadan? okay, macluumad khaldan ay ka aaminsan yihin waxaa ka mid ah kow inaa casa sixriya ay kuu taalo qof markuu subaxi kuu soo galo bukaanka aada jid oo hore ka raysanayo ili bacdu inaad dhehaysid ma aha. kow waxay kaloo ka aaminsan yihiin adi amraadda iyo yani sifaadka lagu soo baray iyo magacyada loo soo bixiyay aad taqaanid yani kulliyan waxaa la kulmaya magacyo ka duwan. marka qofka ku imaanayo adi mathala iltihaab masaalika acazakum ullah soo maqashay qof wuxuu kuusoo gala wuxuu leeyahay shalaboo bay ahaay, shalabowgii raadisuu kaa rabaa. qofbaa kuusoo galaya marka waxaa dhacayo yani mathala wadima waxay ku dhacaysaa ama lugaha waxay barara lagu bararaa ku dhacay wuxuu ku dhahaya dharawow ay galay adi dharawow wuxuu rabaa raadisuu kaa rabaa. gaasoo qofkuu dhahaa marka maxaatan baa fadhisaa waayo. marka yani waxyaalahaas oo dhan caqabaad waayo. marka mustalaxaadkii aad soo baratay tabiga ahaa iyo wixii aa ugu timid waaqica cunugaa lagu keenay yaris waxa le geed koraad ahaaye. geed koraad adi ma taqaanid yani ilmaha prematureka waa dhajisaa lagu keenaa. marka ashyaa kathiira ma fahmi kartid. marka hadii kullaha caqabaad waayo u baahan mustalaxaad tabiya soomaaliya in la qoro. su-aasha soomaaliya haddii qof ahaan lahayd maxaa u sheegi lahayd? soomaaliya waa ka dhashay yani waana ku dhashay waana jeclahay waddankeyga waa. laakiin bisaraaxa haddii soomaaliya yani aan maanta shaksiyan ula kulmi lahaa ee shaksi aan lahayd waxaan dhihi lahaa wax isku fal. xumaanaya lii fahmin yani soomaaliya markaan dhahay wax isku fal bimacna alkelima waa istaahishaa in wax isku fal. maxaa yeeley waxaa la midnaha adduunyadan inay sibaaq ku jirto oo tartan lagu jiro oo majaalaad badan lagu tartamaayo. marka soomaaliya markaan dhahayo wax isku falla marka waxaa waaya qof walboo soomaali ah yani su-aashaas inaan naftiisa u weydiiyo anigaan aan iska bilaabayo inaan dhaho wax isku fal. subax walba markaan soo kacno inaan muraayada hor istaagna aan dhahno soomaaliya wax isku fal. qofka dhakhtarka ah waajibaya inuu barto qaanuun suu maxaa la jira dhakhtarnimadiisa iyo ruqsadiisa iyo shahaadada wax ku xiran.
يعني لازم كل طبيب يتعلم قانون عشان يزاول المهنة ولا لا؟ tan fatwo waaye laakiin yani axaawil ana cilmigeeda malihi laakiin markaan طibiga baranaynay waxaa jirta maada la dhahay akhlaaqiyat طabiib akhlaaqiyad طabiibka waxaa ka mid ahaa nusuus oo min asharc shareecada islaamka laga soo naqliyey iyo falsafado hore ummado hore ay lahaayeen laga soo guuriyey oo yani iijaabi ah ayaa hal kitaab laisugu keenay waxa dhakhtarka u banaan waxaa u banaaneen yani kulli shay bitafsiil mumil ee uga hadleen yani dadkii qoray kaasaa marka waxaa lagu saleeyay dhakhtar walbo intuusan takharujin uu qalin jibinin akhlaaqiyad طabiib yani ethicska waa inuu soo maro kaasa waxaa ku qoran marka qawaaniin laakiin qasab ma ah saan isleeyahay inuu qofka sharciga u aado qawaaniinta uu barto laakiin qawaaniinta shaqadiisa khusayso waxay ku arkaan medical ethicska iyo professionalismka yani almihaniya iyo akhlaaqiyad طabiib kuwaasaa lagu qaataa kuwaasaa xadidaya qofka جميل. الطب هنا وهناك. اختار لماذا ما يشامل كجوب الحمر؟ أي ما ربنا كجوب المحفر كله. okay dhakhtarnimada wadankeena aan ku hayno iyo dhakhtarnimada adduunka markii lasoo barbar dhigo horta annaga dad waxaan nahay ma ogtahay yani qabla 35 caaman waa kufnay dad kufaanahay cunug yaroo markaas dhashay oo kufaanahay markaan kufnay yani rakbal xadaaraadkii waana dhaafay taariikh hore oo mediciinka aan uga dayanayno oo ahaa tib shacbigeena ahaana looma sameynin maraajic iyo meel laga akhrista looma sameynin xuruub ahliyadii wixii ku lumay kuwii adduunyada aan ka baran lahayn adduunyadiina dhaaftayn inaan ku dayana cawaa'iq badanaana soo martay waa dadaalnay hadda wax badan aan sameynay laakiin hadda inta waxyaalaha aan ku hayno bisaraaxa inta waxaa ku hayno waxaa waaye copy aan ku hayno yani taqliid yani atoryaal aan nahay yani mumathiliin aan nahay numathil wax adduunyada ka jiro marka dhakhtar walbo takhasus walbo inta joogo yani wuxuu soo dhaweynaya wixii adduunyada khadamaadka loo because cilmiga uu hayo dhakhtarka Soomaaliga laakiin facilitieski ma hayo hadduu haayana bukaankiisii ma bixin karo lacagta yani adduunyada bukaanka lacagta dowladda ka shubto ama qof shaqaysto iska shubayo Soomaaliga marka wax soo barto qalabkii ma laha qalabkii waxbarashada dil isku helayna qarashkii ma laha marka ilaa laga helo marka yani muthalathkaas u dhamaystirmaayo yani xukuumaddiina ay cover garays noo sameynayso qarashkii bukaanka dhakhtarkiina kafaa'adiisa uu soo meel saarayo adawaadkiina la keenayo markaas waxaan keenaynaa marka dad oo ku dayasho mudan laakiin inta ka horeyso waxaan nahay xadith walaa xaraj جميل جدا. سأسأل في المعنى. سؤال إضافي. وزارة الصحة والمستشفيات هذا كده حيصل على قوانين المتهاي ومحل دي جمال الصعدة محور حالات إنسانية من جفتها ويدخل معاوية wasaaradda yani dadaalo way sameysaa isbitaalada way tagtaa yani shuruuc way soo rogtaa yani howl fududeyna way sameysaa isbitaalada dhan hoolaha waa loo fududeeyey waxyaabo badanaa loo qabtay keliya yani hadda tansiiq wuu jira xataa isbitaaladii khaaska ahaa waxay leeyihiin yani raabita isugu imaadaan hadda nidaamka noocan ma aada loo wanaajiyey marka laakiin waxaa naga maqan weli istiicaab yani qofka shayga in la istiicaabo wasaaradda ahdaafta ee ka leedahay khadamaadka ay fidinaysa mustashfiyaadka sidai ula tacaamulayso iyo dhakhtarka waxyaalaha laga rabo intaasaa istiicaabkooda naga maqan كابتن يعطيك العافية دكتور خالد. ma ka baxsada أجمل لقاء. shukran أجمل لقاء. والله صلى الله عليه وسلم. تسلم ويا أخي، تسلم